freedom. We need freedom. No more genocide. 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 Stop Ethiopia. Stop Ethiopia. Stop Ethiopia. Stop Ethiopia. Stop Ethiopia. Stop Ethiopia. We need freedom. We need freedom. We need justice. We need justice. We need freedom. We need freedom. We need justice. We need justice. Stop killing Oromo students. Stop killing Oromo students. Stop killing Ogadenyan people. Stop killing Ogadenyan people. Stop killing Oromo students. Stop killing Oromo students. Stop killing Ogadenyan people. Stop the killer. Torching the Oromo people. Stop torturing Oromo people. The Oromo genocide. Stop the Oromo genocide. Stop the land grabbing. Stop disgracing Oromo farmers. Stop disgracing Oromo farmers. There is no democracy in Ethiopia. There is no democracy in Ethiopia. We demand justice. We demand justice. We demand peace to our Oromo people. We demand peace to Oromo people. We demand respect of our human rights. We demand respect for human rights. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We need freedom. We want freedom. We want freedom. Ethiopian government, Ethiopian government. stop killing the Oromo students. Stop killing Oromo people. Ethiopian government. Support the Oromo people. Support the Oromo people. Ethiopian government is the killer. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is the murderer. Ethiopian government is a murderer. There is no democracy in Ethiopia. We demand justice. We demand justice. We demand peace to our Oromo people. We demand peace to our Oromo people. We demand respect of our human rights. TPLF is a killer. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No human rights in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. Australia. Stop the hate. Ethiopia! Ethiopia. Stop the hate! Stop the hate. Ethiopia! Ethiopia. Australian tax dollars! Australian tax dollars Is for genocide! is for genocide. Australian tax dollars! Australian tax dollars Is for genocide! is for genocide. In Ethiopia! Australian tax dollars! Is for genocide! In Ethiopia! Stop the genocide! In Ogaden! Stop the genocide! In Oromo! Stop the genocide! In Oromia! We need freedom. We demand justice. We demand freedom! We demand freedom. We demand Australia! Stop supporting Ethiopia! Stop supporting democracy. We need freedom. The government is a killer. Ethiopian government is the murderer. Ethiopian government is a murderer. There is no democracy in Ethiopia. There is no democracy in Ethiopia. We demand justice. We demand justice. We demand peace. We demand freedom. 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 We demand justice. Ethiopia. Ethiopia. We want freedom. We want freedom. We want freedom. We want freedom. No more genocide. No more genocide. No more genocide. Freedom. We need freedom. We want freedom. We need freedom. Australia government. Stop supporting Ethiopia government. Stop supporting Ethiopian government. Stop the government killers. Ethiopian government killer. There is no democracy in Ethiopia. There is no democracy in Ethiopia. We demand justice. We demand justice. We need freedom. We need freedom. Respect human rights. Respect
Stop killing Oromo students. Stop torturing Oromo people. Stop torturing Oromo people. Stop torturing Ogaden people. Stop torturing Ogaden people. Stop land grab. Stop land grabbing. Stop land grabbing. Stop land grabbing. Stop displacing Oromo farmers. Stop displacing Oromo farmers. Stop displacing Oromo farmers. Stop displacing Oromo farmers. Free Oromo prisoners. Free Oromo prisoners. Free Ogaden prisoners. Free Ogaden. Free Ogaden. We need justice. We need freedom. We need justice. We need freedom. We need justice. We need freedom. Killing Oromo people and suppressing human rights. That is why we demand Australia to stop supporting, giving testimony to Ethiopian government who is really dictator. We need Australia to send a lot of money to Ethiopian government for humanitarian purpose. But Ethiopian government use this money to buy different weapons and the Understanding of what's happening over there? I think the Australian government does have an understanding of what is happening, but that is why the Oromia community and the Ogadenia community have today united. meesha maanta maxaad u taagantihiin? Waxaan u taaganahay inuu mudaharaadno Haye. waxaan ku xunnahay walaalaheena dowladda dhacay waxaan rabnaa dowladda Australia inay maqasho iyo inay caawimaadka dhanka aidka oo Ethiopia la siinayo inay ku joojiso because aidkan Ethiopia la siinayo waxa waaye waxa lagu isticmaalayo dadkeena lagu maaqo marka maanta waxay isku imaanayaan in dowladda Australia ogeysiino in anaga taas raali ka Een xaliba ku soo dhawow qoraxay media bal meesha ba taagantihiin boor ba haysataan maxaad u timaadeen maanta sidii bartankeeda taagantihiin kaalmayno dadka naga dilka dhaca bulooyinka iyo xaqra barakicinta lagu hayo caqlinta la leynayo gabdhaha la waxaan ku dhahdaa faraxumaynayo dhalinyarada jeelalka laga gubiye qaadida xoolaha la dhacahayo reeraha la gubahayo yaan doonaynaa codkanaga inaanu halkan oga kaalmayno oo ku gaarsiino aan ka xumahay dhibaatada lagu hayo dadkaas waxaan ku dhahaa reer ogaadeeya rafaadkee lagu hayo mucaawimooyinka adduunku siiyey in waddanka ballaaran Ethiopia lagu gaarsiiyo ummadda lagu nooleeyo waxbarashada iyo wadooyinka horumarka lagu gaarsiiyo waxaa loo isticmaalayaa in dadkii lagu laayo oo loo isticmaalo oo adduunkii laga xidho waa hool weeyaan waa meelaan adduunku gelina kana soo bixi karin waa qaarad yaroo adduunka ka go'an waxaan doonaynaa inay adduunka ka mid noqoto oo codkanagu meel walba gaadho oo aan ay la mid noqdaan adduunka nolosha ay haysta oo kala aanu helo oo dadkanagu ay maxaan kula inta isku qabadkiiyo mugdiga ay ku jiraan ilaahay ka faydaan rajaynaynaa insha allah bismillahi rahmaani rahiim waa ku xumahay saan u qayliyaa marxabeebtay saarba uma hadli karo annagu waddannadan joognaa maanta halkan waxaanu u nimid inaanu codkanaga dhiibano dadkanaga la dhibaataynayo gabdhahanaga xabiska ka buuxa lagu fuulahayo lagu kufsanayo lagu gumaadahayo maaragtay iyo dadkanaga intuu xabiska laga buuxiyo wada indhabeelay ee wada curyaamay ee markii ay dhintaan oo macna sameynayna banaanka loo soo daadinayo inaan kuwa codkanaga siino dadkanaga isagoo waxba galabsanin la laynhayo la gumaadahayo haddana nasiib darrada la inkirahayo la leeyahay barwaaqo iyo adduun baa lagu jiraa iyada oo wax lagu jiraa ina jirna dadka la baabi'inayo kaasaan rabnaa inaan codkanaga siino anigu waxaan tagay waa dhaweeytay Nairobi waxaan ku soo arkay intaas oo gabdhood oo inta iyaga oo ceelka ka caraabay ama gurigoodii joogay inta la kaxaystay oo xabisyada la geeyay oo lagu fuulay oo dhaqan baynu leenahay oo waliba gabdhaha caadaynu leenahay oo gabdhaheenu waa gabdho gudan oo la tolo oo intii binadka hoosta laga geliyay kulli kaale haysti iyo makaankii inta isla go'een iyo inta daba dhilifka ee calooshooda istaqayshtayaalka ee la shaqaysta ee aan wax dana oo dadkaas walaalahooda aan danaynaynin iyaga untooda uu ka fikirahaya insha Allah iyaguna mar jeelka way gali doonaan kuwii jeel ogaadeen iyo dhisay iyo kuwii contract siiyay labaduba jeel ogaadeen bay galeen markii dambe
هاي كسروا قرح الميديا ورئيسنا كلنا ما أنت محد مش متاجنتين maanta waxaan meesha u taaganahay inaan iska soo ooyo علشان inaan dadka la soo ooyo wax kale oo maanta aan qaban karo ma arko gumaysiga aan maanta meesha u taagnahayna waa kii uu ku dhashay awowgay aabbahay buu dilay walaalkay buu dilay arxankaygu uu dhameeyey meel kastoo soo maraysayba dhammayn iyo dil iyo gawrac bay isku maraysay maanta waxay maraysaa uurdooxasho gabadha ilmaha ka soo rid maxaan ku dhahdaay diinta tirtir dadnimada iyo akhlaaqda tirtir meel kasta waxay soo socotayba maanta cudurkii dabargoynta ayaa bilaabmay ood og tihiin kolkay magaalooyinkii iyo dadkii u dhaqmaya iyo dadkii nolosha haystay ay dhaaftay dadkii xoolo dhaqatada ahaa iyo reemiyigii iyo ruuxii dhan wada iyo kii geela jooga iyo kii beer lahaa iyo kii bar lahaa iyo kii socday iyo kii safraya kulli qof walba dariiqa u daasan yahay oo lagu gowracahayo xaqiiqadana adduunka oo dhan wuu og yahay waa ma layska indhatirahayaa laakiin gumaysigaa cidiyaystay oo maxaan ku dhahay awal hore dil iyo kow ahayd maanta nolol xumada iyo dhaqan xumada iyo maxaan ku dhahdaay wecelka iyo garaca ka dhalanhaya iyo masiibada maanta jirta iyo waxyaalaha la soo koobi karay unbaa waxaa niyeystay inaan dadka la soo ooyo maanta dawladda Austraaliyana waxaan odhan lahaa oon anigu u sheegi lahaa xoolaha ay Itoobiya ay siiyaan adduunka wuxuu deeqi lahaa ummado badan xoolaha ay ayagu siiyaan in dadka lagu kursado oo lagu dilo oo jeelalka lagu sameeyo oo jeerogaadeen iyo jeelal kale oo ka waaweyn lagu dhiso oo dadka lagu laayo lagu gumaado marka maanta arrinta umaan meesha u imid inaan ummada maaragtay dhibaataysan aan la soo ooyo indhaqumada ay maaragtay ciilka inaan maaragtay meesha aan u imaado intaas aan u maanta waana mahadsantahay su-aashaas aan weydiisay anigoo guweynay waxa gubay jirkaygii sida gool irmaan oo gorsan weyday jiigaan anigoo guweynay waxa gubay jirkaygii geesaha wardheeri oo goday iyo gar loo gubay dalku gaalku iga degay aan gacan ku soo dhigin geesaha wardheeri oo goday iyo gar loo gubay dalku gaalku iga degay aan gacan ku soo dhigin dan imaaya anigu adna geeridiido hadad garadisiiniyo hadad gooli iga noqon uguntaday dagaalo oo go-aankaygu waa meel kal imaaya anigu adna geeridiido hadad garadisiiniyo hadad gooli iga noqon uguntaday dagaalo oo go-aankaygu waa meel sida goodir hawd baan gaafaa wareega karba iyo qalaafiyo gaashaama bari iyo sida goodir hawd baan gaafaa wareega karba iyo qalaafiyo gaashaama bari iyo gudihii awaariyo goolkeenan dhagax buur ila oo gumaysiga jacarowsha galabtii gudihii awaariyo